saraakiisha kala duwan ee hogaaminayay ciidankii gurmadka ahaa ee shilay soo gaadhay magaalada Laascaanood ayaa booqasho iyo salaan ku tagay guriga uu degan yahay Garaad Cabdilaahi Axmed Sulub. Garaad Cabdilaahi Axmed Sulub ayaa uga mahad celiyay booqashada waxa uu ballan qaaday inuu mar walba garab taagan yahay tan iyo inta laga horeynayo gobolka Sool waana kan garaadka oo ka hadlaya. halkan waxaa taagan saraakiishii ciidamada Buuhoodle gobolka Cayn waxaa saraakiisha kuwa aqaano kuwa ugu badan weeye intaan saraakiil aqaano waayo waragaan ugu hay shaqada ay qabteen soddon sano ee burburkii dawladii Soomaaliya ay burburtay inta xiriyaha joogay wax tababarayay maxaan ku raadayay dagaalo badan galay kuwa kala shaqay ragii dagaaladii weeye guulaha badan geeyay keenay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shaqada ay qabteen wixii hore ay qabteen iyo wax hadda ay hayaan inta wax ma xilina ilaahay waxaan uga baranayaa inuu ku nabadgeliyo ku guuleeyo meel kasta ay joogaan dagaal kasta ay galaan